intaba aan ugu baaqayaa in xaq aysan u lahayn dawladda Indiya xilligan xataa inay maxkamad haday saarayso inay dalkeeda ay ku sarafto balse inay ayada xabsiyadeeda ay ku gurto dil iyo wax la mid ah ay ku xukunto dhalinyaradaas. Professor Maxamed Cumar Dalxa magacaygu waa Cabdi Ducaale wax ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed Soomaaliya hadda ku meel gaar waa ka baxday dawlad federaal baa jirta hadda dawladda federaalka Soomaaliya maxaa la gudbaa marka laga tago baaqad u jeedinaysid ilaa dawladda Hindiya konton wiil oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay ku xukuntay dil toogasho iyadoo burcad badeednimo lagu eedeynayo Soomaaliyana waxaan ognahay in laga dhisay xabsiga ugu weyn ee burcad badeedka oo Garowe ku yaala dawladda tilaabada hadda la ku haboon arintaasi ee qaadi karto maxay tahay dawladdu ku inay maartay safaaraddeena Soomaaliya ee Indiya joogta marka ugu horeyso inay warbixin dhab ah oo tirkuteen aanan ahayn inay soo gudbiso oo wixii keenay in dil lagu xukumo dhalinyaradaasi xabsi ka sokow in haddana maxkamad lagu saaro isla Indiya meeshii laga soo qafaalay iyo sidii ayaga loo soo qafaalay iyo wixii ayaga keenay arrimahaas oo dhan dawladda Soomaaliyeed si iyadan ay uga bogato kadib wixii difaac u noqon kara xuquuqda ay leeyihiin muwaadiniinta dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed inay markaa dawladdu ay ku dhaqaaqdo ama looyar ha u qabato laakiin waxaa muhiim ah in xaq ay u leedahay dawladda Soomaaliya marka u horeyso in muwaadiniinteeda waddankeeda la keeno haddii xabsi xataa ay mutaystaan sida hadda kahor ay ka dhacdayba Puntland in la keenay maxaabiis burcad badeed ah heshiiska lagu gaarayna uu ahaa mid macquul ah oo wixii dambi ah ayagana ay ku cadaadaan dalkooda ay ku qaataan xabsi haddii ayaan lahayn xorriyadooda loo soo celiyo wixii dawladda Soomaaliyeed ee Indiya annagana aan ku sheeganaynin maxkamad cadaalad fulisa oo ayagana la helo wixii khayraad ayaga ee keenay inay Soomaaliya baddeena inay soo galaan oo ay ka kalluumaystaan oo ay daldashaan oo haddii xataa lagu maaragtay eedeeyo inay ka mid yihiin maraakiibtooda kuwa sunta ku daadiya Soomaaliya iyagana abaalkooda laga mariyo marka dawladda Hindiya xaq ma u leedahay in dhalinyaro Soomaaliyeed ay xukun noocaas ku rido Soomaaliya hadda waxay iska noqotay waraabo soo nooga dhalaki dhedheelaasi ayaan maqli jiray min waliba maaragtay way u fududahay waxa Soomaaliya lagu samaynayo ama kuwa booba hantidooda xoolahooda sida South Africa kale ka dhacda kuwa xabsiyada sida hadda Indiya kaliya maahan wadamo fara badan oo Afrika iyo Aasiya iyo Europe iyo America iyo Australia ka tirsan ayaa noocaas oo kale ayaa loogu hayaa maartay waxa dambiyadooda iyaga ay yihiin badi ama inay tahriibayaan wax lagu sheego oo la soo qabtay ama in burcad badeednimo lagu xukumay iyo wal wax u eg maartay argagixisada iyaga ay ku sheegaan badi oo intaba laakiin haddana xaqiiqada dhabta ah aan dawladda Soomaaliyeed maanta si dhab ah aan lagu soo wargelinin oo aanan loo keenin yani waxyaabo markaasi caddayn muwaadiniintaas lagu haysto oo aanan la haynin kulli ay iska wadihiin waxa xataa inaga laftirkayga marmarka qaar guddiga arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ka sokow qaxootiga iyo jaaliyadaha iyo maaragtay qurba joogta ay yihiin maaragtay guddiga sida rasmiga ah baarlamaanka u khusaysa hawshaasi waxaan raadiyaasha iyo dadaalka idinka aad samaysaan miidiyaha iyo TV-yada aan ka ahayn ma hayno xog maaragtay tafatiran oo ama ka timaada dhinaca jaaliyadaha Soomaaliyeed ama ha ka timaada dhinaca safaaradaha